دوركني وعد ويا دوركني وعد ويا دوركني مشرح golaha deegaanka ee degmada Berbera kana sharaxan xisbiga Wicid Cabdullaahi Xirsi Xasan ayaa socdaal ku tagay deegaamada ka tirsan gobolka Saaxil kuwaasi oo hoos yimaada degmada Berbera musharaxa ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay deegaamadaasi iyagoo ay horkacayeen uqaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka ugu horeyntiina waxyagu halkaas hadallo taageero uga jeediyay musharaxa uqaasha islaadiinta deegaamadaasi iyagoo sheegay in codkooda u hubeeyeen musharax Cabdullaahi Xirsi Xasan الرحمن الرحيم أنتم ما أنتي ولا له وجود بس دورشين كا أو بس بقول عدول لي واحد معانية أو الكسر وينه مش عبد الله حسن هالكني هو مقالنا معانية وحوية قبل كالصاحل قلبات كيس مرودي شاحقة وهالكاي إنه عدك كوس صارنا مشرعية دينا وحانو لنا بربر كي كبحدا وبكي الغلين وحوية ومالنتا يا قوشة waxa kalaan halkan uga tallaabsanaya aflagaada wax la yira Xuseen musharaxan iyo taageerayaashiisa waa ka xaraam aqoon baa hogaaminaysa aqli caafimaad qaba hogaaminaya waxa tala toosan baa hogaaminaysa bahweynta reeriidle xilkan baa u egmatay inuu qabto beesha uu ku hogaamiyo nabadgelyo horu socod geedi socod wanaagsan waxa kalaan halkan uga tallaabsanaya nimcada ilaahay nasiiyay halagu mahadna aad ban dadkiina bacadka taagan aad baan idin hambalyeynayna hadaanu nahay qolada socodka imika idinku timi aad baan idin hambalyeynaya Cabdullaahi Xirsi Xasan waxa aynu codka inaynu siino soo ugumaynaan talagelin maalinta ayaan layna waayin waa inaynu diyaar ilaahayna haynagu guuleeyo codkayga u siinayna si niyaabo kalgacal aad iyo aad u fara badan waxaan intaa ku daraya waxaan dadweynaha leeyahay waxaan ku si farxad iyo qiimo leh u soo codkiina ugu hura Cabdullaahi Xirsi waasoo ugu hurmayno waasoo codka siimayna Cabdullaahi Xirsi inaynu dee awood sameeyno oo sidii goobaha loo geyn lahaa iyo hawlaha dee kala ururshadii weeyaan inaynu aad iyo aad dee baraksala saaro halkii cod ku jiraba dee beelbeelba dadku isku dhawi intii meel taalaaba way isku dhawday baabuur baa la saarayaa goob kasta waa la geenayaa dadkii haddii ilaahay qadaro inaad sidaa loo sameeyo ayaa la doonayaa loo dadaalo waxaan idinka baahanahay inaad ismuujisaan adeerkay Cabdullaahi Xirsi Xasan waxaan leeyahay waxaad hiigsi leedahay hamigaaga gaadhaa marka geesi hiiliyo haween gaaridoodiyo dhammaan eheladaadu garbahaaga tumiin hiiliyaha Ilaah baan ku bariyo horuu sii soco hiiliyaha Ilaah baan ku bariyo hodantimaal noqon leeyahay adeerkayna dhinaca kale waxa isagu halkaasi ka hadlay musharax Cabdullaahi Xirsi Xasan oo taageerayaasha uga mahad celiyay sida diiran ee u soo dhaweeyeen idinaadna waan idinka mahadnaqayaa bacadka aad taagnaydeen waqtiga ay hurteen jaaniska ay siiseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa dhammaantiin intiina joogtay iyo inta maqanba aad iyo aad baan idin salaamayaa talabaad waxaan ku darayaa had iyo jeer rag baa lahaa uu tanaasulay markay meelahan marayaan fagaaraha waa la isugu imanayaa doorashadiina 3 cashaa ka hadhay afxuma innaga inaga hadhan taageerayaashayda waxaan u sheegayaa ninna inaanay afxumaynin waxaynu isku ognahay 31 May inaynu ku ridno farta Soomaha waxa kaloo idin raacinayaa calaamadeennu waa 111 amba waa 3 qof kasta meel kastuu joogo calaamadda lambarkeennu waa caynkaas lagu codaynaya aad iyo aad baan khayr idinku rajaynayaa inta meesha joogta rag badan oo saaxiibada wada garanaya way joogaan khaasaana waxaan ka soo jeedaa waliba degmada Macaaneeya ayaan khaasaaniyo degaan ahaanba uga soo jeedaa iyadana waxaan ugu ballan qaadayaa inaan wax badan ka qaban doono haddii aan soo baxo Ilaahay ugu guuleeyo laba arrin waan idin calaamadinayaa laba arrin waan idinku ballan qaadayaa reer Macaaneeyow inaan saldhigii keeno iyo inaan riigii biyo idin keeno labadaaba waan idinku ballan qaaday
insha allahu ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in ilaahay nagu guuleeyo aniga igama suurtowdo inaan magaciinna meel kaga dhaco aniga igama suurtowdo inaan degaankiinna wax yeelo aniga igama suurtowdo inaan wax caqabad idinku ah idiin soo jiido wax idiidana mooye inaanan wax kale idiin soo jiidin waayo degaanadan aan maraya waa degaanadan ka soo jeeday aad iyo aad baanu jecelahay haddaan soo baxo iyagaanu soo baxay waxqabadkooda ugu horreeyana iyagaan ka fulinayaa ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa inay idinkuna codkay siisaan aniguna aan dadaalkeeda yeesho waxaa kaloon idiin raacinayaa had iyo jeer waxaa jira dad boori bagaando wada anigoo musharaxa oo idinka tegey oo intaasoo jeer idinku soo noqday iminka maalmihii ugu dambeeyey ayay qaar inaga midii lahaayeen cabdilaahi wuu iscasilay amba wuu tanaasilay aniga laakiin afxumo igama tegayso iyagu waxay moodayaan in afxumo cod lagu helaayo in afxumo lagu soo baxaayo inay afxumo doorasho tahay anigu taageerayaashayda waxaan u sheegayaa inaanay afxumo inaga tegin kaa afxumada wada iyo innagu waynu simannahay haddaynu soo hadayn karna waynu soo hadaynaynaa isaguna nin buu wadaa kiisa waynu ku eegaadaa laakiin innagu waynaanu afxumo idinka tegin baan idinku dardaaraya walaalayaal waxaa kaloon idinku dardaarayaa ilaahayna ha laga yaabo salaadana ha la tukado nebigana ha lagu salliyo waa xamse jaamac yare telefishinka caalamiga badda cas 24 magaalada berbera